بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكوثر أيضا هو سورة مكية وحي سودك تأنتو النبي صلى الله عليه وسلم ومكتش وقبي سودك معنا. طيب أيضا وحي كهل ليس النبي صلوات ربي وسلام عليه إلهي سبحانه وتعالى شيء سيئي وأدوى ينقالئه إيه الشيء إلهي سيئي وحكا آد النبي أو شكريه إيه قل النبي صلى الله عليه وسلم كسهر تشيدي أو قالأها oo yani cadaawad iyo colaad u hayay kuwa iyaga oo iyagana loo jawaabay rabbi wuxuu subhanahu wa ta'ala inna anagu a'taynaaka wa nuqsinay nabi maxamed al-kawthara wadiga kawthar leeyada nuqsinay ee fasallituko li rabbika rabbiga darti utuko oo wanhar gawra oo dhuundhow لربك ربك درتي أدنو إن شانئك كان كو عرانية هو إساق أيا الأبتر كو دوقو أنه كو عران أيا على ود كو هيا إساق دوقو أنه معنى هذا وحوي وحان نكسينا النبي محمد وكوثر بانكسينا كوثر كم حلي كوثر كا علماء تفسير كا لو تفسير بيليه عبد الله بن عباس وحا كسغن كوثر كوحو كفسري الخير الكثير وحان كسيني خير فربدن او ان لكوبي كرين سيدا سو كفسر عائشة يا علماء الله سعطنا وحي كفسرين الكوثر ووبي خاصة او الهي نبي محمد وسيي ومدي سنة كعبدون تفسير كعائشة ايانا حوق بدنو كوثر كالنبي قال فسري صلوات الله والسلام عليه رسول قال فسري وحنا كوي مد حديث دورة أو كم إذا حديث كأنس بن مالك صحيح مسلم كان قصة أرى روح إليه أنس بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد مرء النبي نلت شوقه لحظة ندأ شوقه مساجد كدحديثة إذ أغفى إغفاءه يعني وحويان ثم رفع رأسه متبسما sidii wax hurdo oo kale ayuu nabigu galay sallallahu alayhi wasallam isagoo dhex fadhiya markaasuu madaxa kor u soo qaaday isagoo oo muusoonaya oo qoslay markaas waxaan ku niri ma adhakaka ya rasuulallah maxaa qoslay wadiga adoo qoslay soo kacay maxaa u qosashay markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam laqad unzilat alayya anifan suratun hadda mardow waxa la igu soo dajiyay nabigu sallallahu alayhi wasallam suurad baa la igu soo dajiyay markaasuu wuxuu akhriyay بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إلى سورة ودمي مركز عن ربي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الكوثر كوثر كوحي يحيى مقرن إنسان كوثر كان إلهي أوليه وان كسينا محمد معنى سما قرن إنسان صحابة بويدي مركز وحن يريبوا لعنس الله ورسوله أعلم إلهي رسولك سايقان ما قرن عنه مركز النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حوض ترد عليه أمة يوم القيامة ونبي صلى الله عليه وسلم كوثر كوا وبيب رسول صلى الله عليه وسلم وبيجا سو ربي جاي إيه وحي وبيجا سو كركي سويا خير آل فربضا وانا الدرك أي ضيد كو أروري دون تو يمارين قيامة آنيته عدد النجوم في السماء ويلشا دركاس أما وبيجا ويلشيسو samada xidigahooda ayay la egyihiin oo la tirayeen fayukhtalaju al'abdu minhum sida loogu aroorahayo wabiga iyo darka looga cabayo ummadan nin kamidoo dhex socda qaar dhex socda ayaa la qabanaya markaas laga celinaya darkii markaas waxa leeyahay buu rabbi innahu min ummati rabbi oo kana celisay ummadaydi uu kamid yahay markaas rabbi wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala innaka la tadri ma ahdatha ba'dak waxba ma ogid wixii uu gadaashaada ka keenayo dibbu balaaye iyo ridda iyo kala yimid xumaan marka ummadaada kama tirsanaa la oranaya markaas dhinac loo leexsanayo waa laga duwaya macnaha xawd iyo darkii baa laga celinay darkaasi marka nabigu sallallahu alayhi wasallam uu aayada ku fasiray maadaama tafsiirkii nabiga aan hayno ma tafsiir kale aan u baahanay laana quraanka waxa lagu fasiraa quraanku isaga fasira nabiga fasira sallallahu rabbi wa sallam alayhi oo ilaahay baa ku sheegay inuu quraanka cadeeyo rasuulku sallallahu alayhi wasallam hadduu isagu cadeeyo kawtharka uu yiri waa wabi ilaahay isiyo ummadaydu ay ka cabi doonto tafsiir kale oo dhawarkiisa waa iska laabayna marka nabiga tafsiirkiisa sallallahu rabbi wa sallam alayhi ayaan qabsanayna kawtharku marka waa wabiga waxa soo arooray dhinacyihiisa labadiisa dhinac iyo labadiisa gabi
وتندوين لولة عرديس ومسكي بيه سعانها وكعديه ملبكنا وكع معي يعني وحوي وبيع عجيبه حوضك إيا كوثركم ما اسكو مدبا بسوي كلا دوين ومسألة علموذا كمرميان عدي كعبتنا مركزا اون قدام بينيس تبدأ بقو أمي ماي كوثر كاس مركا نيم محمد بالسية صلوات ربي والسلام عليه إلهي بالسية ومدي ثانا الله قلت لك قال يوم ما نمت قيامة إني كعبانو إلا قيامة وحل إيمانا يدو آل له أمي وحل الله قلت لك قال مركا إنه أمدي سكعبتو كو أم بحضر تاسع ربي سبحانه وتعالى أوسي كوثر كما دام اللقسية خير كاف قيمها بضن إيو وبيقى هدي اللقسية محال غير مرك فصلي لربك وانحر هدي إلهي يكون نمعي صلى النعمة دينا تكشف رضا معه شكري كمحون نقول يا مركا إناد عبادي ستوي فصلي لربك وانحر لما عبادة مهمة لي المركا كد ذلك عبادة كباري وتكشف صلاة عبادات كبدنك وعبادة أوي ربك كلي أتكالي سيدا قالدا إلهي عدالها أتكالي سوكال هيالي أذوق ربك كلي أتك وانحر حولها أقلي سيد قورع عيسانا ربك كلي درتي سأقل يضنا وحويان وقورع حديق حولها حاجكي حولها مثلا وحوي مارتين يعني مركي عمرها حولها لك حي أضاحيدة إيو حولها عادة يعني وحوي عبادة اللو قورعي عبادة اللو قورعي ما إلهي كو قورع إلهينا أولقصت ضنك لا تنهو قورع صنم له كو قورع يعني وحوي القبر له كدو القورع عيدك لنا هولا قصد وانحر لربك ومعنى لربك وراء قدرنه ربك درتي كلي وقورع ساس درادة النبي صلى الله عليه وسلم لعنتنا إلهي هكود عضو عدي الله عدا رهي وحو قورع له وحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وحويا قورع هو من أعظم العبادات عباداتك إلهي اللي قلنا وادات شنائي الرضا اللي قلنا هذه عباداتك أقوى وين بقورع كمدي عبادة إلهي ليه هدي عدك للصيانة والشركي يقال لموي سأصدراد القبر كي وحوقلا أما ولي أقلا أما وداك أقلا أما تشين أقلا حق إلهي لهاب عدك للصيانة وبالتالي الشركي بقرع لأن عبادة النحر يقورع عبادة اللي كلي أوليه مجعسان اللي قورعه إستجانا لو لقستا قلبنا إستجانا لو لقستا أفكار مجلس لك دواقة قلبنا وحكى لما وجشوا عرفك وحكى لك دواقة مركب قليس معنا ساسوية والحرب لي وعلم تهي آيات نصمرنا في سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له صلاة إذا هي الجور عيدة هي النورش إذا هي الجيريدة إذا بإلهي باسكله عيدين لما وداكت عيد ماشى سوق الكرتون لا وداكت مجد جور عمر كتاوي والحرب مركز واحد لي إن شانئك هو الأبتر إن شانئك كان كو عريسا وكان كاحل كنا عبي عدو قوة مد كاسا أبتر كوحويان ومد دوقو أول ومد دوقو أن أو يعني وحوي خير كهري يمجع كهري اللهين استقبل ويحيقوا تكتيبها لليه odayaashii reer Quraysh sida ninkii la jiray al-Aas ibn Wa'il iyo Abu Lahab iyo nabiga sallallahu rabbi wa sallam alayhi salatu wasalaam ba yaani wuxuu lahaa yaani wiilashiisii iyagoo yar yar bay wada dhinteen gabdhaha uu weynaaday nabiga sallallahu alayhi wasallam yaani waxa weeye Khadiija kaleeto laba wiil iyo afar gabdhood bay u dhashay labadii wiil bay yaraan bay ku dhinteen Ibrahim oo Maariya dhashayna isaguna yaraan buu ku dhintay afartii gabdhood baa weynaaday oo Fatima iyo Zainab iyo Kulthum iyo Ruqayya maadaama wiilashii ay ka dhinteen odayaashii marka Quraysheed waxay yiraahdeen marba haduusan wiil lahayn waa daba go'an yahay warkiisu yaani dhimashadiisuba ku dhamaan doonaa waxba ka hari doonaan ka hari maayo laana waxay rumaysnaa abtarka waxay u yaqaaneen ninka dhinta asagoo wax wiila ka tagin sababtu abtirkiisina waa go'aya cidi ku abtirsan mayso يعني وحوي واحد رج أو كفر عمي ما أوتشر أكتر بيقان مركز واحد هذا كل ودبجو أي هاي استجاب وركيس إسكاب أمان دونا اللي مشدي سان إسكسون رب سبحانه وتعالى مركز يقول إن شانئك كان كو على إنسان أضياش يوحي لمذا هو الأبتر استجاب متك دبجو عنه وم حي كده دبجو أيه حسابتكم معها ويل الباقي هريئيو يعني وحوي ضد بقى يقدم بيئيو فرع بالله هاي وركم معه أبتر وحلي هذا نين
mar hadduu dhintaba adduunka wax magaca iyo wax qiimo u yaalla uusan jirin. abulahab markuu dhintay adduunka inta ka war haysaa waxa uu loo hayaa ceeb iyo dhaleecayn iyo in wax laga sheego. caas ibnu waa'ilna sidoo kaleeto odayaashii gaalnimada ku dhintay sidaasay wada noqdeen. baynamaa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh wax wiilal amuun uma korinoo uma weynaaninoo uma guursaninoo uma dhalin, haddana maca daalika inta adduunyadu ay jirto magaciisaa la hayaa. sooma waa kan soo marnay warafacnaa laka dikraka, ilaahay baa magaciisa kor u qaaday oo intaasoo ummadoo atbaaca buu leeyahay oo ummadana oo dhan buu aabbaheed yahay nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu calayh. muxuu marka waxa weeyaan ma isagaa abtara mise iyagaa abtar ah? iyagaa abtaroo daba go-ay oo dhammaaday oo waxba ka hadhin. magac xunna waa u yaallaa, wax u ka hadhayna ma uu jira. nebi maxamed se abtar maaha macna. innaa annagaa actaynaaka ku siinay nebi maxamedow alkawthara, webiga kawthar la yidhahda annagaa ku siinay. fasalli tuko lirabbika, sidaas daraaddeed fasalli tuko lirabbika, rabbigaa dartii u tuko. wanxar gawrac, wanxar dhuundhow. naxriga inta badan geelaa loo isticmaala, looda iyo adhiga iyo dabxi baa loo isticmaala, lakin labadu waa gawraca. leanna isku qaab looma gawraco, geela si ka gedisan ayaa loo gawracayo, yani waxa way dhuuntaa lagu dhuftaa. marka wanxartu iyada waxaa loo isticmaala gawraca geela. wanxar dhuundhow oo dhuunta ku dhufo xoolaha aad gawracaysa way lirabbika, rabbigaa dartii u gawrac, cid kaleeto meeshaas soo gelino. inna shaani'aka, midkan kuu cadhaysan ee kaa xun ee cadowga ku ah, huwa isaga ayaa alabtaru ku daba go-an ah. isagaa daba go-anoo waxba uusan khayr ka hadhin, magac iyo sharaf uusan u oolin, wax taageero oo raacsan uusan adduunka u joogin. midka daba go-anen waxba u oolin isaga wayaan barbari subxana wa tacala, adiga ma ah. saas way macana.